ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوضح المحجة على السالكين وأقام الحجة على المكلفين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي المرحمة علم الهدى الذي هدى من الضلالة وفتح آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا صلوات ربي وسلامه عليه ما اختلف الليل والنهار وما ذكره الذاكرون الأبرار. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعاذني الله منها وإياكم. walaalyaal ilaahay baa mahadle subxaanahu watacaala inoo waafajiyey jaanisna inoo siiyey in aynu isku baraarujinno wanaagga iyo diinta iyo qur'aanka iyo sunnaha rasuulka salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. taasaynu ku bidhaansanayno nolosha wanaagsan iyo dariiqa mustaqiimka ah, iyadaynu ognay in caalamkan dhan ee rakiban ilaahay uu ka doonayo cibaadada. wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun buu ilaahay. jinka iyo insiga umaan abuurin midnaba inay caabudaan mooye. maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yudcimuun, kama doonaayo risiq iyo inay quudiyaan. ina allaha huwa arasaaqu bilquwati almatiin, ilaahay waa ka arsaaqda bixiya. mar walba walaalayaal waxaad mooddaa waxaas dhinac maray insaanka oo ku mashquulay wixii loo ballan qaaday oo ah risiqii, isagoo ka mashquulay wixii laga rabay oo ahayd cibaadadii inuu ilaahay caabudo. waata keentay taasu in cidhiidhi nololeed uu galo, cidhiidhi maskaxeed uu galo, cidhiidhi xubnaha iyo quluubtaba ku dhaca iyo qalbi engeg in fara badan uu ka dawoobi waayo inuu la kulmo qofkaas. allahna subxaanahu watacaala wuxuu yihi: waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan banka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma. qofka ka jeedsada dikrigayga, dikrigu waa qur'aanka iyo xadiiska iyo sunnaha, waxa aan qofkaas uu leeyahay maciishatan banka, nolol cidhiidhiya. nolosha cidhiidhigii waa dhinacyo badan ayay markaa saamaysaa. ma aha qofkoo lacag cidhiidhi ka gala, ma aha qofkoo caafimaad cidhiidhi ka gala, laakiin cidhiidhigu waa cidhiidhi fara badan oo dhammaan dhinacyada nolosha oo dhan saamayn kara. wuxuu noqon karaa cidhiidhi dareenka qofka iyo farxaddii uu ka galo. wuxuu noqon karaa cidhiidhi saameeya qofka noloshiisa iyo baahidiisa markaa dareen dhammaan. wuxuu noqon karaa cidhiidhi qofka maskaxdiisa iyo laabtiisa saameeya markaa. cidhiidhigaa waxaa u dheer cidhiidhiga aakhiro oo indhala-ana ilaahay uu ku tilmaamay, walciyaadu billaah. waxaa aad iyo aad u muhiima in qofku uu dikriga ilaahay quuto. sida aynu u quudanno raashinka ayaa arwaaxda iyo markaa naftuna ay u quudataa dikriga ilaahay. mawduuca maanta laba kelmadood biidni illaahi tacaala waxaan isleeyahay aad ka tidhaahdid shirkiga. markaa shirkigu waxaynu ognay inuu yahay mid aad iyo aad markaa u ah miduu ruuxa muslimkii kula kulmaayo cadaab aad iyo aad u fara badan. ahna markaa shirki waa gaalnimo qofku ilaahay cibaadadiisa cid kale uu la wadaajinayo. ilaahayna subxaanahu watacaala qur'aanka in fara badan ayuu ku tilmaamay. aayaadka ugu fara badan alwalaa walbaraa bay culimmadu yidhahdaan. waa laa ilaaha illa allah, tawxiidka ayuu ka hadlayaa. markaa shirkigu in ilaahay la keli yeelo ayuu ka soo horjeedaa. markaa waa didda altawxiid, oo ah in ilaahay la keli yeelo. wax alla waxa ka soo hadhay oo cibaadada la siiyo shirkigaas oo aad ama daaquud la caabudo oo nool oo ilaahay ka soki markaa la weyneeyo lagana amar qaato. cibaadadii ilaahay uu xaq u lahaana in fara badan isaga la siiyo, iyadoo markaa
وسامينايو شركه dhinaca fara badan xagga cibaadada xagga xukunka xagga qofka caqiidadiisa markaa intaba uu saameynayo shirkigaas oo ah mid nebi kastaaba uu ka digi jiray suuratul ancaam ilaahay wuxuu ku leeyahay ilaa 18 nebi ayaa aayaddaas ay soo taxaysaa ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وهارون وسليمان وكذلك نجزي المحسنين وإسماعيل واليسع ولوطا وكلا فضلنا على العالمين آيات كاسوحة كسوة قبوبيا وإلا سيدة النبي ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون هذا شريك إلا أي النبي هذا صدا عمل كود وبربر الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين أي إلهي ولي كوانو هنونني كضي مركا شركي قاس آيات كلا إلهي وحكول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلهي سبحانه وتعالى مرضى إن لو شركي يلو لكن waxaa ka soo hara ee marka qaladaadka ka dhaca qofka muslimka ee macaasi leh inuu ka dhaafo waa laga yaabaa laakiin shirkiga ah oo ah muhiimka marka ay diintu u soo degtay in la zuuliyo waxaynu ognahay markii nabiyullaahi maxamed ilaahay soo saaray laqad manna allahu cala almu'miniina id bacatha fiihim rasuulan min anfusihim bilaahi waxaa gallad iyo sharaf iyo nicmo ilaahay idinku manaystay markuu idin soo saaray nebi nafihiina ka mid ah oon malag ahayn aa fikran weydaan oo turjumaan uga baahataan oon jin ahayn aa arki weydaan laakiin bashar ah kaas oo ah miduu idin baraayay xikmadda iyo diinta taas oo ah miduu idin baraayay aayaadka ilaahay uu idinku dul akhriyayay markaa wayusakiihim idin daahirinayay markaa shirkiga iyo nifaaqa idinka daahirinaya صحابة رضوان الله عليهم كهر انتان مركا الله صوص صار النبي دad قبائل ay ahay oo marka islaaya oo marka ilaahay caabuda Umar al-Khadaab ayaa laga hayay ilaahiyadan caabudinay waxa kamid ah ilaah timira oo waqtiga xilligu adkaaday ee jilaalka ah aan cuni jirnay oo gamaha intaan ka goosanno oo gacanta kale aan ka goosanno nin waliba uu la cararo marka waqtiga gugana timirtu ay baxdana la sameeyay marka ilaahay walaayad billah waa jahli marka heer ay aasaan marka hablahooda wada mawdatu suila inaan la aasay ka inaan toban jira waqtiga ugu quruxda badneed qofka uu indhaha ku raacaysan labad ku dhalay weey waqtigii ay soo koraysay weey inaan taas waqtigii nolosheeda ay heli leed weey aqoon ay baran leed dad ayaan ficil qoys muslim oo dhisan ay noqon lahayd qofkaas oo marka dadka muslimka wax ku soo biiriya ayaa la aasayay marka jahligu halku gaaray balka waa rasuulka ka badbaadiyay jahliga inta leey waqti ay isku leeyinayeen faraskayga ka dheereeyay oo kaaga ka dheereeyay qabaylan ay ku dhimanayeen 40 qof iyo in ka badan 40 sano iyo in ka badan uu soconayay marka dagaalka ka bilaabmo laba faras oo kala dheereeyay oo jahli شركة قاسو بدعي رسول صلوات ربي وسلامه عليه هي أمة الصاي سليني زي مكة إن الرعنو يتبع إنه كده إنه أي عادي مهم خرافات كدتك أي كبحان أي كسور شيء مكة إلهي غير كينا عابده وحكم إلهي غير كي ولا عابده سقوا قفق بريه مكة وحي إلهي كسكير ملك بو بريه ملاك بريه شيخ بو بريه waxba ma badbaadin karo waxa soo sheekh dhintay oo la bariyaa waxba ma qaban karo marka isaga u baahan in loo duceeyo oo quraan loo akhriyo kubadkiisu ay marka ilaahay u bariyaan laakiin in isaga la bariyo waxa la wax uu qaban karo oo uu qaban karo ma jiro marka waa arintaas waa arin shirki aad iyo aad u ballaaran marka oo shirki aad iyo aad u weyn marka ayay keenaysaa marka qofkuna laga yaabo hadii loo cadeeyo in marka gaalnimo ay marka sababto shirkiga gabigiisa waa gaalnimo ya shirkigu
وقالنما مركا شركة قاسوح وصوبيا إن قفكم مركا ومسير كيسو نارت النقطة لا مآلا ولا ابتداء أنا كده كود عفتي إنها سيين كسو كوبنا محاضرة وما سنتين وحيان وافقي حقي إلهي بكاته وحي قلنا نفتيدي شيطان وبالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته